حتى بطي سنوس بتنك ونكوغه إن أدوني سشن دقيقة أدوه دي شنتاس دقيقة ما يستهيشو إن الحق قول دردو له ضعيف نمو يسكتشف كل مصر أود سيال هذا دوني هردد عنك وحكو سوغيا وقول ساحن ضعيف نمو هموتين أترون ترون معني كستمر كسترون قاعدة واحد هايستا لبا أوبشن إنها ساعد الرادسو وعاد كل فتوي سنوس بتنك كدب أسكري وتوحى على الغبنك أما هذا يخت ساعدة كي سيغدو الكسو ورنا وقعدو أن حقيق سيده هدف كاي هذا دورتي أوشن كلابات وحكو هريا لو هدف كاي كعو حقيقي كعو عوددان مركب الحوني سدوا إناد أدوكي سنة وإناد كسي حتى هدف كاي كريوتا ونصو كعدا وإناد أركتا وكاغم مغدا حالك آني علمك أركي وإناد درينتا ويأدكتهي لما سمين كرو وإناد سكديسا وآد سميسا هدف كاي أنا حقيقي muuqaalkeena maanta waa motivation ama dhiirigelin aynu kaga hadli doono si aad u gaadhay guulo wax ku ool ah. halkan waa halkan media magacaygu waa Axmed Macalin soo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadayaal. guushu waa shayga kaliya ay ka wada siman yihiin dadka niyadiisa sida ardayda macallimiinta shaqaalaha shirkadda maamulayaasha dhakhaatiirta injineerada iyo dhammaan noocyada kala duwan ee dadka guul la'aanteeduna noloshu waxay noqonaysaa bilaa macno bilaa qiimo sidaa daraaddeed guushu waxay noqotay baahi aan laga maarmayn haddii aad garato meeshu fashilku kaaga yimi waxaa laga yaabaa inaad garato guushu meesha kaa hayso inaad guulaysato ma adka laakiin waxay u baahan tahay tallaabaad hore u qaado guushu ilaa hadda malaha macno fadhiyo lagu saleeyo laakiin kelmad ahaan waxay ka timid uu guulaystay oo macnaheedu tahay inuu gaadhay yoolkii iyo hadafkii uu lahaa inaad guulaysato waxaa ka horaysa inaad isbeddesho isbeddelkuna caqliga ayuu ka imaadaa caqligaagana waxay ku xidhan tahay kelmadaha iyo hadallada aad naftaada ugu sheekayso kelmadahaagu waxay ka mid yihiin waaqaca aad ku nooshahay maanta waxaa laga yaabaa inaad meel sare ku sugan tahay ama meel liidata sababtoo ah waxaad naftaada ugu sheekaysay waqtiyadii lasoo dhaafay kelmaduhu waa sida midhaha oo kale waxaad beeratunbaad ka helaysaa waxaad ku dhisi kartaa mustaqbalkaaga sidoo kale waad ku dumin kartaa way fiican tahay haddaad kelmadahaaga ku dhisto mustaqbalkaaga ku bilaabato maalin walba waan guulaysanayaa awood baan leeyahay waan gaadhaya hadafkayga qiimaha laygu leeyahay waan iska soo gudayaa waxaanahay qof qiimo leh waxaanahay qof taalanti leh dadku way jecel yihiin waxaanahay qof habi ah waxaanahay qof dadka intiisa kale ka soocan kelmadahaas oo isbiirsaday waxay degayaan naftaada muuqaalkaaga kale oo keliya ma beddelayaan adiga oo dhan ayay ku beddelayaan ma ahan taasi inaad tahay qof positivity oo rajo ku nool ah waxaad saadaalinaysaa guul waxaad saadaalinaysaa level cusub inaad u gudbayso noloshaada waxay ku salaysnaan doontaa way ku socon doontaa hadba halka ay kelmadaha ku jiheeyaan dariiqa guushu waa mid codlaa oo ay ka buuxaan dhibaatooyin iyo caqabado afar waxyaabood la'aantoodna lama mari karo inaad hadafkaaga xadido inaad baleen degsato inaad aqbasho inuu fashil kugu imaan karo ku suntanaato geesinimo gudayna samayso mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad ilaa aad ka xaqiijiso meeshaad doonayso inaad ku dayato dadka guulaystay oo aad dhex gasho oo aad la saaxiibto waayo qofka guulaystay wuxuu garanayaa nolol bilaa hadafi inay tahay dooni bilaa shiraaca halka uu kala guuldarada ku nool yahay bilaa hadaf laamihiisu sidaa ku dhammaadaan isagoon waxba qabsan qofka guulaystay wuxuu fokaska saaraa hawl maalmeedkiisa isagoon dhammayna kama tago halka uu kale fokaska saaro siduu uga baxsan lahaa mas-uuliyaddiisa iyo hawl maalmeedkiisa guushaad aragtay ee ay gaadheen guulaystayaasha soo maray caalamka uu ugu horeeyay hogaamiyaha dunida nabigeena maxamed sidoo kale asxaabtiisa taariikhda ku xusan dhammaantood allaha ka raali noqday iyo dadka maadiga guusha ka gaadhay waxay joogteen 3 qodob ku sugnaanta hadafka joogtayn iyo sabir fashilka iyo guuldarrada oo ay 10 ka barteen waxay noo balana waan iskaga tegayaa un noolow ilbiriqsi kasta inuu yahay kii kugu dambeeyay noloshaada iimaan ku noolow ididiilo ku noolow halgan ku noolow والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.